ayaga iyo ciidanka dawladda isku meel bay ka falgalahayaan maxaa jira cadow ka weyn baa ku soo duulay sidee marka u dhici kartaa in kooxda al-shabaab iyo ciidamada dawladda ay hal meel ka wada howlgalaan inagoo aan ognahay labada dhinac cadaawada ka dhaxaysa cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka ku al-shabaab daynaynin oo ciidanka daynaynin oo gaal yubkiisi qaba hadduu wadanka ku soo duulay maxay u kala dhowrsanayaan haye hatta shabaab baan waxaan u sheegahayaa waajahatul muslimiin inay dhaqaaqaan oo hargeysa tagaan oo ka baxaan koonfurta Soomaaliya maxay tahay marka sababta aad ugu baaqayso kooxda al-shabaab inay tagaan magaalada Hargeysa haddii wadankii Soomaaliya ay gaar ku soo duushay waxa kitaabka Allah wadanayo islaam baan nahay ayaga jiraa hagareena difaaca oo jihadka hadoonteeno nin weeye saddex jeer bay marhayaan mar waxay yiraahdeen Ethiopia nahay mar waxay yiraahdeen maxaan ku raadaan reer binu Haashim haddana waa kuwan waxaan nahay yuhuud leh shacabka ma aha waa inta maamulka oo maxaan ku raadaan gaalada awood oo madaxda maamulka Somaliland ayaad ku tilmaamaysaa inay gaala yihiin adiga hadda marqaati baad ka tahay ninkii shalay oo hayay oo calanka yuhuudaysiya calanka Israa'iilisiya oo huwan hayay inta ka daadanaysa muslimba maamulka Somaliland waa la dagaalamaya ma aha yuhuudda daraashiisa meeshay dadka naga maxaan ku raadaan Soomaaliya ay yuhuud soo dejin lahaayeen ayaga ha guuleelo yuhuud ha u tageeno nin kugu soo duulaana in maxaan ku raadaan saldhigu ku lahaada Muqdisho maxay tahay haye shacabka hadda maxaan ku raadaan maamulka Soomaalidiidka oo la dagaalamayo maxaan ku raadaan laynhayo oo dhaqaanta sitay caawinayaan ciidamada sayid la geynayo oo ma waxay ka qayb qaadanayaan in maamulka Somaliland ay la dagaalamaan warkaada cadee Somaliland waa xirxiran maxay tahay marka sababta loo xirxiray makka ma noo imaanaysa yiraahdeen yuhuud haye xasan sheekh maxamuud uu xiriirka u jaray saddexdaas rugmi haduusan xasan sheekh maxamuud maanta cadaynin waxaan sheegayaa inay run yihiin Soomaaliya ha ogaad xiriirka waa inuu jiro Thailand imaanaad yuhuud batanba waa in wadanka laga sifeeyo haye xasan sheekh maxamuud safaaradda iyo imaanaadkiina albaabada u xiran rabaa ma garato ciidamada Soomaaliya in inta la qaado sayid algeeyo waa rabaa ma garato xuduudda Soomaaliya in la geeyo waa rabaa ma garato ku dhawahay maamulkeeda iyo shaqaalaheeda iyo idaacadda magaceeda waan salaamahayaa waxaan ku salaamahayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaa kaloo halkaan ka salaamahayaa Soomaali weyn inta fiyow oo islaamnimada iyo ehelnimada iyo risaaladii nabiga iyo kitaabka Alle inta maxaan ku raadaan aaminsan waan salaamahayaa haye inta kadib Soomaaliya maanta meel xun bay gashay ma garat haye saddex nin baana gelisay Soomaaliya maanta heerka ay taagan tahay ma garat waa kuwee saddexda waa Xasan Sheekh Maxamuud oo gudoomiyaha iyo Dani iyo Axmed Madoobe haye sidee ku geliyeen adduunka maanta lama uumin intuu qarjiyay quruur waa jiray baa la yiri qarri dhismay oo la yaqaanay oo sharci ahay oo maxaan ku radaa qariirad iyo xuduud lahayd maanta inay Israa'iil arrintaas bilowdo waxa keenay waa saddexdooda sababtay ku keeneen waxa weeye haye Ethiopia inay sayid degto waxa saxiixay waa Xasan Sheekh Maxamuud sidee buu ku saxiixay Addis buu tagay Ethiopia bariyahan waa tii ku haysay asmaran ku duulayna iyo badda asbaan dagayna iyo ababaada ku haysay waa sheeko maxaan ku radaa maam wareerina halkaan uu guuleeyo saxiix u haysata ma garad haye markuu Xasan Sheekh Maxamuud inuu saxiixay ay ogaadeen Dani iyo Axmed Madoobana imaanad bay la xirteen oo ka saxiixdeen ayagana inay maxaan ku radaa soo degto wadanka ma garad haye imaanad Kismaayo iyo Garow uu degan yahay hadda saacadan kula hadlayo kol hore maxaan ku radaa tageen ma garad maxay tahay marka danta imaaraad uu ka leeyahay Berbera iyo sidoo kale Kismaayo iyo qaybo ka mid ah Garowe danta ay kala yihiin waxa weeye waligoodba waa la yaqaanaa imaaraad wax isku diraan waxaan kama shaqeeyaan carabti ayaga la dhaatay dhaxdooda maxaan ku radaa Liibiya iyo maxaan ku radaa ay baabi'iyeen ma garad haye mid ay ugu daran oo aan la yaabay oo aan maanta ka soo galayna waxa weeye inta la maxaan ku radaa Falastiin haye inta ka taga soo raynaayo waqooyi galbeed jeynayna in la yiraahdo waa mid ugu daran ma garad haye oo marka ma waxaad aaminsan tahay in maamulka Somaliland sababta uu Israa'iil u sheegay inuu aqoonsaday inay tahay in loo soo raro shacabka reer Falastiin sidoo kale tan saldhigyo military halkaas uu ka dhisto saxiix weeye waxa weeye god sireed odin hadaad qodana hadheerayn ku dhici doontidaan lama ogaanay hadda saacadan boor ma dagaal baa ka socdo
ودك شعب كهاي وديدي وحال Soomaaliland ay la dagaalamayso xuutiyiinta maxaa ku ragantaalo oo hargeysa ku soo joodiyeen dad shacabka ku dhamaan doono arrintan ay ku intaay oo Soomaaliya yay tahay marka cidda ku dagaalamayso magaalada Boorama Soomaalidka waxa shacabka la dagaalamahay haye Xasan Sheekh Maxamuud Harbaan leeyahay haye safaaradda Soomaaliya saacadaas maanta codkayga gaarsiisan baan rabaa saacadu codkayga gaaro Xasan Sheekh Maxamuud safaaradda imaaraadkiina albaabada u xiran rabaa ma garato haye ciidamada Soomaaliya inta la qaado sayl algeeyo waa rabaa ma garato xuduudda Soomaaliya la geeyo waa rabaa ma garato hay maxay soo kordhinayaan marka ciidamada saylac la geenayo iyo sidoo kale xiritaanka safaaradda imaaraadka uu ku leeyahay Muqdisho kugu soo duulaana in maxaan ku raada saldhigu ku raada Muqdisho maxay tahay haye shacabka hadda maxaan ku raada maamulka Soomaaliyeedka oo la dagaalamayo maxaan ku raada laynhayo oo dhaqaanta sitay caawinayaan ciidamada saylac la geenayo oo ma waxay ka qayb qaadanayaan in maamulka Somaliland ay la dagaalamaan warkaada cadee maamulka Somaliland waa la dagaalamaya ma aha yahuudda darasiisa meeshay dadkanaga maxaan ku raada Soomaaliya ay yahuud soo degsin lahaayeen ayaga ha guuleelo yahuud ha u tageeno haye shacabka ma aha waa inta maamulka oo maxaan ku raada gaalada awood oo madaxda maamulka Somaliland ayaad ku tilmaamaysaa inay gaala yihiin adiga hadda marqaati baad ka tahay ninkii shalay oo hayay oo calanka yahuudda siiya calanka Israa'iil siiya oo huwan hayay inta ka daadanaysa muslimba haye culumada Somaliland waa xirxiran yihiin maxay tahay marka sababta loo xirxiray Makka ma noo imaanaysa yiraahdeen yahuud haye oo marka waxaad leedahay Sheekh Maxamuud uu xiriirka u jaray saddexdaas rugmi haduusan Xasan Sheekh Maxamuud maanta cadaynin waxaan sheegay inay run yihiin Soomaaliya ha ogaad xiriirka waa inuu jiro Thailand imaaraad yahuud batanba waa in wadanka laga sifeeyo haye oo ma waxaad leedahay midnimadii ummadda Soomaaliyeed ay leeyihiin asaga uu qorshaha wado haye maxaan ku xamar anaga haduu yiri in Soomaaliya fiyo oo xamarka waxa leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud hal u banaan baxo hay iscashiro haday Soomaaliyada doonayaan maxay tahay marka sababta aad u leedahay madaxweynaha jamhuuriyadda hays casilo kuwii uu la joogay dhibaatadu mariyay hadaan arkayno kuwa ka fog arrintan ay soo socota aniga waxaan ogaaday oo xaqiijiyay oo dabagal ku sameeyay inuu wax ka wato maalinkii uu maxaan ku raada Hargeysa waftiga u diray waftiga uu horay watay maalinkii Hargeysa u diray baan ogaaday arrintan ay imaan doonto haye oo ma wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa halka u diray xaqiiqo cidii ugu beeninaysa hadasho maxaad ku xaqiijinaysaa marka in wafdigaasi madaxweynaha jamhuuriyadda uu xil saartay in halkaasi ay tagaan ayaga qiray oo markay Hargeysa tageen maxaan ku raada madaxweynaha soo diray baan nahay waa idin garab taaganahay ayaga afkooda ku yiri hadda idaacad ay ku jirtaa midii ay ku jirtaa hadda bal yahuudu maxay kala kulmi karaan tallaabada guracan ee dhanka Soomaaliya ay u soo qaadeen yahuuda waxay kala kulmi kartaa waa go'doon meel badeecay u marto iyo meel shidaal u maro iyo meel marka uu maray weeday waxay rabtaa inay baabul madad fariisato haye inta Somaliland ay garab ka saarto marka ma ku muuqata adiga in baabul mandab ay sidaasi dheedheesha ku fadhiisan karto yahuuda maya ma fariisan karta haday Soomaali fiyo hadii la helo ma fariisan karto haye marka gabay aan hadda meesha ka sheegayno Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan uu tiriyo nimankaas waxaan ku raada uu tiriyay baa jiray haye xaqiiqadiisina maanta aan aragnay wuxuu gabaygaas ku sheegay inay run yihiin hadda aan aragnay ma garan haye maxaa ka mid ahaa gabayga waxyaabaha uu ku tilmaamay ee maanta taagan gaalada magasantaan abid baa maxaan ku raada iyo yaan ku ka garan haye oo hadda ma waxaad leedahay shacabkii Soomaaliyeed ayaa gaalada magansanaya war ma shacabka ma Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu hadleeyay ma shacabka Muqdisho lagu eedayn karaa haye nin weeye saddex jeer bay marayaan mar waxay yiraahdeen Ethiopia nahay mar waxay yiraahdeen maxaan ku raada reer Binu Haashim haddana waa kuwan waxaan nahay yahuud leh marka siyaasiyiinta maamulka Somaliland soo ma cadda in shacabka marba qar ay ka tuurayaan isla markaana ay gelinayaan boholo waaweyn oo aysan ka soo bixi karin inta siyaasiyiinta iyo inta maxaan ku raada aqoonyahanka iyo Soomaali weyn iyo dhalinyarada waxaan u baaqayaa inay arrintaas ka kacaan oo laga mudaharaado oo laga hortago oo hubka la qaato hatta
حتى شباب وحنو شيء هي واجهات المسلمين إن دقاقان الهرجيسة تكان ويكبر عن كفرت الصومالية. maxay tahay marka sababta aad ugu baaqayso kooxda al-shabaab inay tagaan magaalada Hargeysa? haddii waddanka Soomaaliya ay gaala ku soo duushay waxaa kitaabka Allah wadanaayo islaam baan nahay ayaga hagareena difaaca oo jihaadka hadoonteeno haye oo ma waxaad leedahay shabaab jihaadka ay sheegi jireen hadduu dhab yahay warka cadeeya jihaadul muslimiin hadduu taageeya haye mana loo kala harayo magaca Soomaali wax sheegto hadday jihaadkaas aadaan shabaab ma aha waa Soomaali haye ayaga iyo ciidanka dawladda isku meel bay ka falgalayaan maxaa jira cadow ku weyn baa ku soo duulay sidee marka u dhici kartaa in kooxda al-shabaab iyo ciidamada dawladda ay hal meel ka wada howlgalaan inagoo aan ognahay labada dhinac cadaawada ka dhaxaysa cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka ku al-shabaab daynaynin oo ciidanka daynaynin oo gaal yubkiisi qaba hadduu waddanka ku soo duulay maxay u kala dhowrsanayaan haye bal ugu dambeyntii fariintaada ugu dambeysay aad u dirayso dawladda dhexe maamulka Somaliland iyo sidoo kale maamulka Yahuuda ee ku soo xadgudbay madaxbanaanida Soomaaliya maxay tahay Somaliland gaal iyo muslim mid inay noqotaan ugu baaqaya xamar Somaliland saddex meelood markii hore laba meelood xamar bay joogaan waa xildhibaano waa wasiiro waa ra'iisul wasaarayaal inay barnaamijaan oo u istaagaan oo hadlaan baa la qabaa aniga waxaan dhageysanayaa markii arrintan lagu dhawaaqay dawladda Shibayti wax ka hadlay oo Soomaalinimo ay qaaday farmaajo ka jiray marka kadib baa loo yeeray maxaan ku raadaa wasiiradii iyo shir baa la qaad waxaad baratay waa baaska ay wixii Soomaalida dhexdeeda ay ku hayeen oo ay tanka hadal diblomaasiyad kuma hadleen way ay tamiro waxay yiraahdeen Yahuud ma aqoonsan karta maxaan ku raadaa Somaliland ayadan badal lahayn shay dalka ku aqoonsan karta bal fiir hadal diblomaasiyad baa waxa weeye marka fadhiga laga kaco warka Soomaali weyn gaarsi wixii Allahood leeyahay oo shahaadanayo oo islaamnimo sheeganayo hal la dhaqaaqo fadhi ma jiro hadal diblomaasiyad waa dhaaftay hal la dhaqaaqo oo ma waxaad leedahay dalka dagaal ha isku diyaariye ka dhana Israa'iil oo Soomaaliyeed lagu soo duulay dalka haddii nabadgelyo la waayo geeri waa shaftuuriyo qoladan xaaladda degan saddex meelood markii hore laba meelood waa Yahuud waa basaasiin xasan sheekh maxamuud ha ka saaro xarana inta joogta ha ka saaro maslaxadda ay noo hayaan maxay tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nabadoon Maxamed Axmed Samatar wariyaha adiga mudan intoo kale ku mahad celinaya waa ku salaamayaa assalaamu calaykum